السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa soo kordhay COVID-19 22 xaaladood ayaa wadanka ku soo korortay coronavirus ah. waxaa rag ah 14, waxaa haween ah 7, 19 waxaa laga helay banaadir. 2 kamid ah cadada aan kor ku soo sheegnayna waxaa laga helay Puntland. da'da haddaan fiirino dadka u dhaxayso oo laga helay da'dooda meesha inta u dhaxayso 20 iyo ka yar waxa waaye eber, 20 iyo 39 waxa waaye 68, 40 ilaa iyo 59 waa 21, 60 iyo inta ka sareysana waa 11. tirada guud waxay isugu tagaysaa oo COVID-19 wadanka laga helay 1594. ma jirto geeri cusub ilaahay mahadiis. tirada guud ee dhimashadana waxay taagan tahay 61. waxaa bogsaday ilaa iyo 16 qofood. tirada bogsashadana waxay tagaysaa 204. walaalayaal mar walba aan ku dardaaranno in aan cudurka ka hortagno, inaan xakamayno, in lagu dadaalo nadaafadda, isdhowrka, la raaca talooyinka ee takhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka iyo khubarada ay bixiyaan. cudurkan waa cudur laga hortagi karo. in la dhowro dadka waayeelada ama xanuunada gaar ee krooniga ah qabo, in si allaala sidii yacni lagu gaari karo in cudurkaas la xakameeyo, bulshada ay dhinaca uga soo jeesato, in la xakameeyo socodka meelaha buuqa aan la tagin. haddii qofka banaanka ugu baxa ama gaariyada publikada uu raacayo mar walbaba banaanka uu aadayo inuu xirto afxirki. in si kastoo cudurka loo xakameyn karo waajib naga saaran yahay dhammaan, in qof walba uu isa saaro waajib inuu ka fakaro naftiisa iyo nafta dadka uu jecel yahay uusan halaagin. bulshada waajib wada saaran waaye, waa inaan ku dadaalnaa. ilaahay hanaga haayo cudurka aafadiisa iyo dhibkiisa, laakiin waxaana saaran waajib in aan ku dadaalno inaan cudurkaas xakameyno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.